السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ ذي لهانتين بداودة halkaan naga daawanaysa waa kanaalkeena Meestar Cabdi dadka cusub ee ku subscribe noo saar kambalelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada ugu dambeeya bartaan soo dhigno mahadsanid. maanta waxaynu furfuri doonaa barnaamij la magac baxay lixda diimood ee caalamka waqti xaadirkan ku soo kordhaya ama u kabcaya arrimaha diinta ka hadalkooda ama faaleyntooda. dad baa u yaqaana wax xaaraana balse waa qayb ka mid ah cilmiyada la barto oo takhasus gaarana laga gaadho. maanta muuqaalkeenu waxa uu gacan haadinayaa diimaha caalamka aadka u soo kordhaya halkay kaalinta koobaad kaga jirto diintii uu Ilaahay inoogu soo dhiibay nabigii Nabi Maxamed calayhi salaatu afdal wasallam ee islaam. kelmadda islaam haddaad maqashid waa adeecadda Ilaahay, waa diinta dadka haysta ay aaminsan Ilaah kaliya inuu jiro. dadka islaamka raacsan waxa loo yaqaanaa muslimiin, waxaana aaminsan in ka badan 2 bilyan oo qof. waa diinta kaliya ee aadka u kordhaysa xilliyadan dambe. sanad kasta in ka badan 15,000 oo qof ayaa soo muslima. isku celcelis ahaan waxaa adduunyada aaminsan in ka badan 28.1% muslimiintu uma aaminsana inuu Nabi Maxamed yahay nabi keenay diin cusub, balse wuxuu sii anbaqaaday diimihii ay ka tageen Nabi Ciise iyo Nabi Muuse. muslimiintu waa kuwa aaminsan in Quraanku yahay waxyi kaasoo lagu soo dejiyay Nabi Maxamed. marka la yiraahdo muslim, dad badan ayaa isweydiinaya Ilaahay maxay ka aaminsan yihiin, laakiin Alle Quraankiisa ayuu noogu sheegay suuratul Ikhlaas: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. waxaad dhahdaa Nabi Maxamedow, eebbe waa keligii, wehelna uma baahna, waana sayid deeqtoon. eebbe wax ma dhalin, isna wax ma dhalin, wax la mid ahna ma jiro. qofka muslimka ah waxaa ku waajiba inuu sameeyo 5 inuu shahaato, inuu soomo, inuu salaado, iyo inuu xajka aado, inuu sadaqo bixiyo. diinta islaamka waxa loo qaybiyaa 2 qaybood oo kala ah sunni iyo shiico. 85% waa muslimiin sunni ah, halka ay yihiin 15% muslimiin shiico ah. muslimiinta shiicada ah waa kuwa ku nool wadamada Turkiga, Ciraaq, Iiraan iyo wixii la mid ah. way yartahay inta ka baxda diinta islaamka marka loo eego waqti xaadirkan, waana diinta kaliya ee hadda caalamka dagaal lagula jiro sidii loo wiiqi lahaa. waa diin qofkii ka baxa aanay macquul ahayn inuu sii noolaado, sababtoo ah dadkii uu ka tegay ayaanu ka badbaadayn. intaa waxay noogu eeg muuqaalkii koobaad aan kaga hadlaynay 6 diimood ee caalamka u soo kabcaya. inta muuqaalka xigay diinta xigtay iskugu iman doona. sidaasi fi amaanillah. في ساحة للعلم كنا نلتقي.